waxaa hakad ku jira muddo 3 maalmood ah gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho kadib markii maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabelle uu ku soo rogay amar ah inaysan shaqeyn karin gaadiidka. sababaha gaadiidkan shaqada looga joojiyay ayaa ah in qaar ka mid ah gaadiidleyda magaalada Jowhar in ay diideen inay qaadaan dad shacab ah oo loo diyaariyay garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar maalin ka hor in ay ku soo dhaweeyaan madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ka soo laabanayay magaalada Garowe. gaadiidleyda ayaana sabab uga dhigay arintaasi cabsi al-shabaab ka qabaan darteed waxayna sheegeen haddii soo dhaweynta ay ka qayb qaataan in al-shabaab gaadiidka ay ka qaataan markay ku socdaalayaan wadada. qaar ka mid ah gaadiidleyda iyo shacabka doonayay inay u socdaalaan magaalada Muqdisho oo la hadlay TV-ga Universal ayaa waxay sheegeen in wax laga xumaaday tahay amarka ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee gaadiidka shaqada looga joojiyay. anagoo ka mid ah darawaliinta gaadiidka gobolka Shabeellaha Dhexe ee ka shaqeysa magaalada Muqdisho iyo gobolka Jowhar waxaan cabasho ka nahay maamulka gobolka oo yaani ma taqaanaa gaadiidka aan ku shaqeysan jirnay naga xanibay muddo adiga 3 maalmood hadda u xayiran haddana wax irida oo yaani ma taqaanaa aan ku baxnayna noo muuqan waxaan codsi u jeedihaynaa maamulku inuu naga qaado culeyskana dul saaran gaadiidka waa ku shaqeysan la'nahay waxay nagu heestaan inaan qasab ugu shaqeyna iyaga yaani ma taqaanaa haddaan qasabka ugu shaqeynana biri niman kala jiidka jooga oo iyagana baawarta amba naga qaadahay amba yaani ma taqaanaa naga gubay waana ogyihiin iyukuba diyaarada ay ku raacaan ay ka raacaan eelaboorka annagana jidkana marid naga raba waxay ka cabsanayaan jidka inoo joogan baawartan inay ku shaqeystaan si awood ay ugu shaqeystaan ay doonayaan waxaan doonaynaa marka inay naga qaadaan culeyska ay nagu dul hayaan dadkan waa dad iska baahan oo masaakiin oo baawartan ku shaqeysto ku xamaasha haddii 3 biri iyo wax ka dambeeyo meel ku ogyahay xirigu aan la ogeyn si xiraadaan waxa laga yaabaa in dad yaani ma taqaanaa baahi u qabay oo baawartoora waxay soo shaqeyso ku noolay ay u baaba'aan amba yaani ma taqaanaa waxay cunaan waayaan dadkii loogu xamaali jira. waxa kamid ah gaadiidkan gobolka Shabeellaha Dhexe ka shaqeeyaan nahay gobolka Banaadir aan tagnay waxa amaraan lagu soo rogay inaysan gaadiidka oo shaqeey karin waxaan ugu soo rogay maamulka gobolka maxay dhibaatada jirta waxa ugu horeysa kamid ah maamulka gaari wato gaariga amnigiisa wax sugaya malaha wax la isku haysto waxa ilaa wax ka bilaabta buuqa eelboorka madaxweynaha Waare soo degay eelboorka la aadaal lahay culeys meesha ugu badan oo ka bilaabto oo meeshaas baabuurka eelboorka aado inuu safar galo ma laga yaabo ku adag tahay dhibaatadan haysa taas kamid gaadiid badan ama qan amnigeena wax sugaya male boosteeja sidaas daraadeena lagu xiri dhaqaalaan bixinaa anaga mali 200 jidka ku bixinaa boosteeja xiritaan lagu soo diray shacabku waa kan horta inay wada tuurihiin sidoo ku bixilay malaha maanta waxa la sameeynaa moota la raacay balcada lagu tagay mootada kadib baawur qofka qaadana qarashka ku badana kulleed waxaan codsanaynaa in arintan wax laga qabto. saaki waxaan u socday waxaad jawaab boosteejada Jowhar waxaan u socday magaalada Muqdisho waxaad dhacday maanta kula 3 ina adig wax gaadiid oo dhaqaaqabo ina la waayo anaga danteeni yanta duruufteeni waxaad ku xirantay magaalada Muqdisho halka maamulayaashan adig Jowhar xukuma waxaad laga doonaa shacabkaana adig faraha badan ee meesha daasano arkaysiin ina adig u asxaafalana wadadoodii ina u furaan oo ku dareystaan kii xamar aad la yanta kii deeg soo galay xamar ay dalo baahan intaas anaga ayaga maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sidoo kale dhawaan ganacsatada magaalada Jowhar ku amray in aysan aadi karin ururka al-shabaab haddii ay ugu yeeraan deegaanada ay ka arimiyaan. Ibrahim Ali Nur TV-ga Universal caasimadda Hirshabelle Jowhar.